السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال سو دhowaada رمضان مبارك aan ileenahay maalintii 27 waaye maanta waxa guud jirnaa hooshii fidrada sa u jeedin waxa waa meesha waxa yaalo galey oo fidre teeda kale oo u jeedin asxaabtu xirxirooyin ilaa guriga jirta saaxiibada shaqada hayaan maanta waxa la soo baxay fidradan 25 qof oo Turkiyaan ah iyo 35 qof oo Soomaali ah waxaana ka wakiil ah macallin Graan oo joogta dalka Holland dhowr mar ay ku soo laabatay macallimada oo ka qayb qaadatay dhowr mar in sida Soomaalida xitaa qof ajnabi xitaa ugu soo qaada wax oo muslim ah sidii walaaleed kale u gaarsiiso waxa leenahay muraadka ay leedahay iyadan Ilaahay u saalo iyada ilmaheeda Ilaahay xafido waxaan gudagaleynaa qaybta gudaha sida u diyaarsan tahay kaali arka cameraman soo soco oo jeedin fidrada inta waxa yaala loo bacaatal 37 xabo waaye intana sidoo kaleeto bac kala taaliyadana 37 kaleeto meeshan sidoo kaleeto hooshiya socoto maanta waxaan bixinaynaa fidradii iyo afurkii hooshiya la isku wadaa maanta fidri macal afur kulli waa la isku wadaa intana waa taala qaybta kala taalo marka waxaan leenahay macallin Graan khayr la hasiyo macallimada Ilaahay khayr ku siiyo adiga ilmahaaga Ilaahay ni xafido Ilaahay gaalada haniga qabto sida mar walba garab taagan tahay in aad ka qayb qaadatid xitaa dadka kale ajnabiga aan Soomaalida ahayn in aad wax ka soo qaadid si aad naftirkooda khayrka u gaarsid inay ka faa'iideystaan waxa leenahay macallimada khayr la hasiyo ilmahaagana Ilaahay waxay jecelina ha ku siiyo mustaqbalka ka rajaynayso noloshana Ilaahay ha ku siiyo muraadkaaga Ilaahay ha ku sahlo insha Allah Ilaahay ka baryeena inuu muraadkaaga Ilaahay ku sahlo waxayna ka qayb qaadatay 25 qof oo Turkiyaan ah inay maamad wax nooga soo qaado ay khayrka tusto waana dadka aad ku jecel khayrka waxa leenahay maamo khayr laaha ku siiyo waana 6 loor cabdiruna ha waana 6 loor ki ugu dambeeyay waa kana saaxiibkiisa ii sheegay waay 6 loor oo galeey cabirnay waana ki ugu dambeeyay hada la cabirooyaa inta kale waa la cabiray waa u jeedin sida soo aragteen waay marka waxa leenahay Turkiyaasan waxa leenahay khayr laaha nisiyo Ilaahay garabkiina ha galo Soomaalida kale tan waxa leenahay ka qayb qaateen Ilaahay ha naga aqbalo sida khayrka uga faa'iideysteen waa marka kaliya loo baahan yahay in khayr amin la garab istaago walaalaheena insha Allah waxa leenahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa macallimadeena macallin Graan waxa leenahay khayr ilaaha ku siiyo waxaan kale ugu sii mahadcelinaynaa gudiga iyo hooshaan wadaan gargaarta agoonta oo iyagana oo ah gudoomiyaha gargaarta agoonta waxa leenahay khayr ilaaha siiyo waa isku soo dabridka iyo hoosha habeen imaan fadhiso in habeen imaan ay fadhisay seexanin ay u kacdin khayrkaan ay ka faa'iideyso qof walba walaal